maanta waxa aad isaga fududaatay diin la'aan, waxa maanta sahlanaatay gaalnimo in la gaaloobo. dadka qaar gaal waxay u yaqaanaan marka nin Maraykan ama Faransiis oo cadaan halkaas soo istaago gaal bay odhanayaan, iyadoo laga yaabo gaalo ka waaweyn oo afkeena ku hadlaya oo midabkeena leh oo inala qola ay joogaan baa laga yaabaa inuu gaalka kaasoo kaliya u haysto. waxa mawduuca igu kalifay diin la'aanta iyo waxa weeye gaalnimada iyo wadooyinkii ku dadka gaarsiinayay oo aad u batay, fisqigii iyo macaasidii iyo xumaantii iyo dunuubtii noocay u tahay iyo in lagu madaxadaygo in la faafinayo waxyaabahaas inta lagu fogaado kadibna ay isu bedelayso macaasi iyo dalaale isu bedelayso. waxa tusaale kugu filan dadkan hadda gaalnimada miidiyaha ka wada waa dad marka hore lumay oo shahwaad dhex dabaashay oo waxa weeye macaasidii ku fogaaday kadibna waxa weeye uga sii gudbay. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. عزة أي قاضي markii la yidhi waxani waa xaaraan, aayad baa ku timi, xadiid baa ku yimi, ilaahay baa ka hadlay, nabigaa ka hadlay, wixiiba waxa weeye isku majaxaabiyey. wax qalbigooda degay ayaa waxa weeye xaalka noocaasa gaadhsiiyey.